بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أولا إلهي أيام هذا إسكاله مرة بعد يمسد حاد إلهي أيام مهل علنا وحنقول مهل علنا بوش تاريخها وما أنت إلهي ونقاسيي وحن شغلنا دقمة عالدر وحن إلهي وشكرنا إنه ما أنت بوش ونقاسيي نحكي عدو هذا فرورة قلنا وما أنت إسكو دي سميي ما ربنا هراء كسمايان waxaan ilaahay uga shukrineynaa xoogga dalka waxaan uga shukrineynaa guusha uu gaarsiiyey marka labaad waxaan u mahadcelinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo xaquuqdirka oo maantay shabaab beeneeyay wixii ay waqti dheer la khashanayeen oo ay ku hadaaqayeen waa beentii yiri ilaahay idankiis guushaas kadib waxaan soo bandhigi doonaa jabkii iyo dhibaatadii gaartay waxa yaala meydadkoodii baa yaala saacadaas waa aadana waxaan la wadaagi doonaa shaabaha iyo telefishinada qaranka iyo bayjka wax laga daawado ayaan la wadaagi doonaa sidaas harna klibka yarkaasna inaan duubno mahadcelinta marka kale ilaahay baan u mahadcelinaynaa guusha uu gaarsiiyay inuu noo siyaadiyana waa ka rajaynaynaa marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed khaasatan waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa ciidanka la yiraahdo Gorgor oo muujiyay dabar aday gooni aan muujiyay qofka waxa la yiraahdo qofkaan u mahadcelinin bini'aadanka ilaahay u mahadceliyay si gooni ayaan ugu mahadcelinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma kala guuleysteen waa wada guuleysteen shabaab meydkoodii baa yaala wixii naga dhintay ilaahay ha u naxariisto naga shiiday waxa dhaawacana waxaan leenahay ilaahay ha noogu baydhayo halka qayma badan oo ay ku dhiman lahaayeen cidii saaka halkan ku shiiday ma jirto ayagoo cadow la dagaalamaya bay shiideen kuwa dhaawacana waxaan leenahay ilaahay ha noo caafiyo guushaasna waxay noqon doontaa guul taariikhiya Soomaaliyeed oo dhan ay ku faanaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan u soo hoyatay inay hore uga sii socono baana rajaynaynaa saaka isku day bay sameeyeen waana ay ku fashilmeen ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda in ayaga aan ugu tagno meelihii ay ka soo abaabuleen dhagarta foosha xun ay ka soo abaabuleen in ayaga aan ugu tagnaa rajaynaynaa ilaahay idankiis oo aan ka saarno intaasaan la wadaagaynaa wixii ka dambeeya xilligeedaan ka hadli doonaa haddii ilaahay ma laakiin mahadcelintaas yartaa baan rabnaa inaan sheegno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada oo asaguna kelmadiisa oranayaan aan ku soo dhaweynayaa ku soo dhawow بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد أسقناتي oo maantay gacanteena sare mariyay kooxihii khawaarijta ahay oo nabadiidka ahay ummadda dhibaataynaya muddo isku daygii ay la foolanayeen oo ay muddo culculayeen isku dayayeen inay deegaanka ay dadkan ku dhibaateeyaan marka ilaahayda mahadda guushaasna gaarsiiyey maantay waxay isku dayeen sidii ay meelaha qaar ba isku dayi jireen dhibaato u gaarsiin jireen qaarkoodna ugu fashilmi jireen waxay isku dayeen in halkan dhibaato ka geystaan maantay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waa beentii yiri waxaana marka u mahadcelinay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo sida geesinimada leh ugu hortagay qaybahooda kala duwan haday ahaayeen ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliyeed macusleyda xaquuqdirka iyo dadka shacabka oo ayaguna runtii qaateen